marka isha naga muuqata iyo dayaca iyo horumar la'aanta iyo wax oo dhan waxaa asaas u ah khilaafaadka soo jiitabay ee jiray ilaahay uu inaga zuuliyo oo nabadaan helno xorriyadaan helno oo dadku si fiican u noolaadaan ayaan rajaynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكسن داوديال ميل كسو دنيا نغلا سوعتان وهبينيمو جمعة بشا أكتوبر نايسي غريسو 8 سنة 2022 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah xukuumadda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo qaaday tallaabo aad loo soo dhaweeyay isla markaana ay dadku ka dalbanayeen muddo dheer inay sameyso dowladda deegaanka Soomaalida kadib dilkii loo geystay Allah u naxariistay marxuumadii lagu dilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga. Xukuumaddu tallaabo weyn ayay qaaday oo aad looga soo dhaweeyay magaalada Jigjiga iyo guud ahaanba dowladda deegaanka Soomaalida iyo wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF-ta oo meel xasaasi ah maraya iyadoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in maanta ay tallaabo ka qaadayso waqooyiga waddankaas Itoobiya isla markaana ay u soo dhisayso maamul cusub iyo kooxda TPLF-ta oo u soo jawaabtay. mid ka mid ah amiiradii ugu waaweynaa ee kooxda argagixisada ee shabaabka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo nolosha lagu qabtay siro badanna ka shifay kadib markii ay sirdoonka Soomaaliya gacanta ku soo dhigeen qaabkii loo qabtay iyo waliba shirahaasi uu ka shifay aneegi doona iyo shirka uga soconaya madaxda maamul goboleedyada iyo waliba dowladda federaalka ee Soomaaliya magaalada Muqdisho oo maanta qodobo xasaasi ah lagu soo qaaday. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida oo maalmahanba wajahaysay xiisad culus oo ka dhalatay kadib markii dil bareer loogu geystay magaaladaasi Jigjiga garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal gabadh xildhibaanad ka ahayd dowladda Itoobiya isla markaana aad looga yaqaanay magaalada Jigjiga iyo guud ahaan dowladda deegaanka Soomaalida. Juweeriyo Subciis ayaa lagu dilay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga isla markaana waxaa ka dhalatay xiisad ballaaran oo dad badan ayaa mudaharaadyo waaweyn ka dhigay magaalada caasimadda ee Jigjiga kuwaas oo dalbanayay labada qodob ee dalbanayay oo kala ah in la dilo isla markaana guud ahaanba ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay nolosha dhaafiso ninkii dilay xildhibaanadaasi iyo guud ahaanba in ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu waa qodobka labaad in garoonka diyaaradaha iyo guud ahaanba meelaha muhiimka ee deegaanka Soomaalida laga qaado dadka ajaanibta ama askarta ajaanibta ah ee dowladda Itoobiya ay u soo dirsatay ee ilaalinaya waxaana xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay maanta qaaday tallaabo muhiim ah oo ay dad badan soo dhaweeyeen. tallaabadaasi oo ah in guud ahaan garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal ee magaalada Jigjiga laga wareejiyo ciidamadii federaalka ah ee ku sugnaa waxaana maanta ammaanka garoonkaasi sugayay ciidamo isugu jira booliis iyo ciidamada xoogga gaarka ah iyo guud ahaanba ciidamada fara badan oo halkaasi ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay geeyeen si ay u sugaan ammaanka garoonkaasi. weli si rasmi ah looguma wareejinin xukuumadda deegaanka Soomaalidu balse waxaa la filayaa in guud ahaanba ay xukuumadda deegaanka Soomaalidu tallaabo weyn qaadi doonto oo dhanka dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya garoonkaasina uu noqon doono sida looga wareejiyay ciidamada federal booliiska loo yaqaano ee ay dowladda Itoobiya soo dirto. waxaana xogaha kale ee soo gaaraya ay sheegayaan in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay qorsheynayaan haddii xitaa laga wareejiyo ciidamada haatan la wareegay garoonka diyaaradaha in lagu wareejin doono ciidamo federal booliis ah balse ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida ama ciidamo Soomaaliyeed oo federal booliiska lagu dari doono iyadoo haatan aanay jirin ciidamo booliis ah ama federal booliiska ku jira oo Soomaaliya walow ay jiraan qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya ciidamo ka mid ah oo ka soo jeeda dowladda deegaanka Soomaalida ama ciidamo Soomaaliya oo ku jira ciidamada kala duwan ee dalkaas Itoobiya balse ma jiraan federal booliiska ciidamo ku jira oo Soomaaliya. haatanna waxaa la filayaa sida qorshuhu uu yahay ama xogaha hoose aan helayna ay sheegayaan in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay qorsheynayso in ciidamadaasi lagu daro Soomaaliya isla markaana inta ciidamadaasi laga soo tababarayo ama guud ahaanba ay soo diyaarinayso dowladda Itoobiya in ay ammaanka garoonka sii sugi doonaan ciidamadaasi haatan isku dhafka ah ee booliiska iyo ciidanka xoogga gaarka ah ee booliiska isugu jira. si kasta oo ay haato magaalada Jigjiga wali waxa laga dareemayaa xiisadaasi ka dhalatay gabadhaasi lagu toogtay garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Jigjiga iyadoo maanta la qaaday gabadha walaasheed oo isla hal meel ah lagu toogtay iyadana dhaawac culus uu soo gaaray oo dhanka qaarka dambe u badan waxaana xukuumadda deegaanka Soomaalida uu ugu horeeyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo maanta ka ambabixiyay garoonka diyaaradaha ee Garaad Wiilwaal isagoo madaxweynuhu sheegay in aad looga xun yahay guud ahaanba wixii ka dhacay garoonka isla markaana ay filayaan inaanay mar dambe halkaasi waxyaabahaasi oo kale aanay ka dhicin iyadoo dowladda Soomaalidu uu yahay meelaha ugu amniga badan ee dalkaasi Itoobiya. dhinaca kale dowladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo waliba kooxda TPLF waxay wada hadal uga socdaan wadanka Koonfur Afrika
waxaana maanta la arkayay marsii horeysay sawir ay ku wada jireen ama kulan ay wada yeesheen madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo weliba afhayeenka kooxda TPLF Gitajo Ureda kulankaasi oo qayb ka ahaa kulamada ballaaran ee ka soconaya waddankaasi Koonfur Afrika ee lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac ee Itoobiya iyo dowladda deegaankaasi Tigreega ama kooxda TPLF ee haatan fallaagada noqotay. si kasta oo ay haataba kooxdaasi TPLF iyo dowladda Itoobiya weli waxay ku wada hadlayaan waddankaasi Koonfur Afrika waxaana dagaalo baan ay ka soconayaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya oo weli ay ku dagaalamayaan labada dhinac iyadoo dowladda Itoobiya ay qorsheynayso ama guud ahaanba xogo hoose oo la helay ay sheegayaan in ay diyaarisay maamul cusub oo loo sameynayo deegaankaasi Tigreega xilli kooxda TPLF ay isku dayayso inay kasii arrimiso deegaankaasi Tigreega oo ay dowladda Itoobiya isku afgartaan. Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku cadaadinaya dowladda Itoobiya inay joojiso xabadda ka socota deegaanka Tigreega oo ay guud ahaanba la isku afgarto, balse waxaa la filayaa in maalinimada berri ah ama sabtida ay kasoo bixi doonaan qodobada lagu heshiiyay iyo guud ahaan waxyaabaha shirkaasi la iskula soo qaaday walow weli la ismari la'yahay oo heshiisku aanu weli si rasmi ah u dhicin. haddana weli labada dhinac kuma ayna kala kicin oo waa la isla wadaa oo guud ahaanba waxaa la isku caadinayaa in labada dhinacba ay heshiis hordhaca wada gaadhaan. heshiiskaasi ayaa noqon karaya mid xabadda lagu joojiyo guud ahaana ay kooxda TPLF kaga tanaasusho maamulka deegaankaasi Tigreega oo ay dowladda Itoobiya usoo magacaabi doonto maamul cusub oo kala wareega kooxdaasi TPLF oo dhowr iyo 30 sano ka arriminayay dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaankaasi Tigreega. haatan anigana wararka naga soo gaaraya Soomaaliya iyadoo maalmahan ay ka socdeen dagaalo xooggan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya waliba dadka deegaanka oo iskaashanaya ay dagaal la ba'an kula jireen kooxda argagixisada ee shabaabka deegaano dhowrana ay ka qabsadeen ayaa waxa ay xogihii ugu dambeeyeen soo gaarayay isla markaana ka imanaya jiidaha hore ee dagaalka ay sheegayaan in deegaanka warciisa ee duleedka degmada Jowhar lagu burburiyay maxkamad ay kooxdaasi argagixisada ee shabaabku ku lahaayeen aagaasi. ciidamada waxay sheegeen in la sii wado doono howlgallada lagu baacsanayo kooxdaasi argagixisada ee shabaabka gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana hogaaminayay howlgalkaasi maanta lagu burburiyay maxkamadaasi deegaanka warciisa ee gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan Axmed Faal oo guud ahaanba horboodayay duulaankaasi culus ee ay ciidamada dowladdu ka wadaan gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. wararka waxay sheegayaan in howlgalka oo dhowr jiha ah ay ciidamada ku soo qabteen madaxii sakawaadka u qaabilsanaa kooxda argagixisada ee shabaabka ee deegaanka Jowhar ilaa iyo Raagaceel kaas oo saxaafadda mar uu ka soo muuqday uu sheegay inuu 10 sano la shaqeynayay kooxda argagixisada isla markaana uu u qaabilsanaa ururinta lacagahaasi baada. odaygan la soo bandhigay ayaa sheegay in kooxda argagixisada uu ka tirsanaa isla markaana lacagaha uu ururin jiray sidoo kalena uu ahaa nabadoon mid ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellaha Dhexe. si kasta oo ay haataba dowladda Soomaaliya waxay waddaa dadaal xooggan oo ay ku doonayso in kooxaha argagixisada ay ku soo cirib tirto waxaana haatan ay u muuqataa in dowladda Soomaaliya iyo waliba ciidamada deegaankaasi ama deegaanada kala duwan ee dalku oo ka qayb qaadanaya guud ahaanba duulaankaasi inay guulo muhiim ah ka soo hooyeen tan iyo markii uu bilowday dagaalkaasi oo ka curtay gobolka Hiiraan. gobolka Hiiraanna waxa uu haatan noqday gobolkii ugu horeeyay ee kooxdaasi iska xoreeya. inta badan gobolka Hiiraan haatan kama jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo kooxda argagixisada ay ka sameyn karto waxaana ciidamo fara badan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasi ay geysay iyo waliba dadka deegaanku ay si la yaab leh uga howlgalayaan deegaanada kala duwan ee gobolkaasi Hiiraan iyagoo lug isugu kala gooshaya kala duwan waxaana guud ahaanba ay dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu ay halkaasi ka dhigeen meel xasiloon oo guud ahaanba dadka halkaasi degan haatan wax cabsi ah kama qabaan in kooxaha argagixisada ay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan. akhayrta sharafta leh wada nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgelyo.